milatariga Somaliland ayaa gacanta ku dhigay gaadiid dagaal iyo hub aad u culus oo u socday beesha Ciise kaasoo laga soo gudbiyay xadka Itoobiya iyo Somaliland ay wadaagaan. Waanu idin soo gudbin doonaa daawadayaal xogta iyo macluumaadka ku saabsan gaadiidkaas. Dhinaca kale Saylac waxaa ka dhacday israsaaseyn xooggan waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan. Faahfaahinta ayaan idinkaga helnaa. dhinaca kale maxaa ka jira in beesha Isaaq ay si toos ah ula safatay beesha Wadabirsi cadaymo iyo muuqaalo xasaasi ah ayaanu idin soo gudbin doonaa inta warbixinteena aan ku guda jirno. Haddii ay tahay markii koowaad ee soo booqatay soo dhaw daawade muuqaalkan la gareeyay shir gareeyay dad badan ay xogteena u gaadho hagaaga. haddii ku bilowno maalmihii la soo dhaafay waxaa xiisad kacsan iyo dagaallo qaraar ay ka dhaceen qaybo ka mid ah gobolka Awdal waxaana markaasi dagaalka ugu culus uu ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Usali halkaas oo isku farasaareen maleeshiyaadka kala tirsan beelaha Wadabirsi iyo sidoo kale Ciise. xukuumadda Somaliland oo isku dayday in ay markaasi kala dhex gasho dhinacyadan aysan u suurtagelin in markaasi ay joojiso dhiigga daadanaya iyo in dhinacyada markaasi halkaas ku dagaalameen la kala qaado oo xiisadana markaasi la qaboojiyo. balse milatariga Somaliland ayaa saacadii la soo dhaafay qaaday tallaabo culus kadib markii ay gacanta ku dhigeen gaadiid dagaal oo markaasi qoryo waaweyn ay ku xiran yihiin kaasoo la sheegay in ay lahaayeen beesha Ciise isla markaana ay ka soo gudbeen dhinaca Itoobiya. beesha Ciise ayaa deegaanada markaasi ay ka degto dhinaca Itoobiya waxaa saacadii la soo dhaafay ka socday abaabul xooggan iyo sidoo kale gurmad markaasi lala gaarayay ciidamada iyo maleeshiyaadka beesha Ciise markaasi ka dagaalamayay gudaha gobolada Awdal iyo sidoo kale Sanaal. saacadii la soo dhaafay waxaa jiray xogo markaasi kala duwan oo ka soo baxay gobolka Awdal kadib markii ciidamada markaasi iyo sidoo kale ciidamada milatariga Somaliland ay bilaabeen dhaqdhaqaaq xooggan iyo howlgallo markaasi ay ku baadigoobayaan cid kasta oo markaasi isku daydo in ay xabad markaasi bilowdo waxaana ay gacanta ku dhigeen sida xogtu ay tilmaamayso gaadiid dagaal oo markaasi la sheegay inay lahaayeen beesha Ciise. xubno u hadlay beesha Ciise ayaa sheegay in gaadiidkaasi uusan waxba ka jirin isla markaana wax haba yaraatee laga qabsadeen aysan jirin. dhinaca kale beesha Wadabirsi ayaa tallaabada markaasi ay qaaday xukuumadda Somaliland gaar ahaan milatariga ku tilmaamay mid markaasi la doonayo in lagu xalaashado gaadiidka iyo sidoo kale hubka beesha Wadabirsi isla markaana laga dhigo in beesha Ciisena wax laga soo qabtay sidoo kalena beesha Wadabirsina laga qabanayo gaadiid dagaal. waxaana markaasi ay sheegeen xubnahaasi in gaadiidka ay soo bandhigeen xukuumadda Somaliland uu yahay gaadiid marka horeba ay lahaayeen ciidanka milatariga isla markaana la doonayo in lagu banaysto laguna xalaalaysto gaadiidka dagaal markaasi maleeshiyaadka beesha Ciise. haddaba dhinaca kale magaalada Saylac wararka naga soo gaaraya waxay sheegayaan in halkaasi israsaaseyn ay ka dhacday isla markaana hal qof uu ku dhaawacmay. xogtu waxay tilmaamaysaa in haatan magaalada ay xaaladeedu degan tahay isla markaana wax hadda rabshada aysan ka jirin balse guud ahaan gobolada Awdal iyo sidoo kale Sanaal waxaa ka taagan xiisad culus oo markaasi ka dhalatay dagaal maalmihii la soo dhaafay halkaasi ka dhacay oo sababay dhimasho iyo dhaawac. xildhibaan Maxamed Abiib oo markaasi laga soo doorto gobolka Awdal ayaa waxaa markaasi uu si adag uga hadlay xiisadda halkaasi ka taagan isagoona eedeyn culus u jeediyay xukuumadda Ciro. madaxweyne muuse dhinaca u fadhiisanay maalin walba Cabdallah sii socdo soo socda waa la isdiliyaa subax dambe haddana waa la isdiliyaa haddana dadkii qoriil lagu haddana subax dambe la soo iibsanaya haddana waa la isdiliyaa. shalay nabadii wuxuu yiri reerka jabiya $50 ma ka qaadaya iyo ciidaas ka qaadaya meel la meelay martimooy hadli ma yeetay dadkaas isdiliyaan. marka waxa weeye war ardaydan dhexdiina oo isku gurmanayno oo dhexdiina isqabanay colaada hal qabto waxa dhib yar anu qoladani way baqrayaan waxa ku wari war sida dhib yar aan idin sheego waxay doonayaan baa ku nimanka raashiga saaqinayno arrimeena dhamaysanay inaga iyo Ciise waa walaaleyna wada fadhiisano inaga wada soconaano nimaadna naga baxnaan haddii diidaan inay dhex galaan oo nabad qabtaan Cabdallah shaqeyn waayo. marka arintaasi Maxamudow way culus tahay dadka walaaleyalka jooga ha loo kala gurmado hadday dawladdu waajibkeedu guud u wada maalintii hore waxa markaad gasheen waxay idinku tiri anaga noo daaya oo Cabdallah daaya Cabdallah maamul kari waayo uu ku filnaa waayo. shalay markii madaxweynaha doorashada la isla garan waayay taa soo dhaadhacday baad budka ku dhufateen inaad budka ku dhufataan baa la idinka doonayaa.